qof ahaan halka aad joogtid kuma faraxsanid naftaada maamulkeedana gacanta kuuma jiro waxaad raacdaa sida naftaada ay jeceshahay waqti badan ayaa social media kaaga baxo 5 sano ka hor riyo qurux badan ayaad nolosha ka lahayd laakiin maanta ma kuu muuqato riyada wax kasta way isbedeleen adna waad isdhigatay qofka aad tahay kuma faraxsanid waxa aad dareemaysaa in level ahaan aad hooseyso saaxiib haddii qof dhalinyaro aad tahay sidana aad dareemayso noloshaada maamulkeedana gacanta uusan kugu jirin waxaan kugu soo dhaweynayaa Monkey Mood waa awood inaad diiradda saarto naftaada edbin nafeed iyo wax soo saar joogto ah haddii aad hadda ku qorto YouTube-ka faa'iidada uu leeyahay Monkey Mood waxaad arki doontaa dad badan oo ka sheekeynaya sida noloshooda u bedelay kadib marka ay naftooda ku dabaqeen xeerarka muuqaalkani waxaan kula wadaagayaa xeerar kooban oo noloshaada wax badan ka bedeli doona haddii aad dabaqdid xeerka koowaad waxa uu yahay diiradda saar waxa muhiimka kuu ah saaxiib qof kasta waxbaa ku weyn hadaf iyo hiigsi u ah laakiin markaasi waxaasi waxbaad ka hormarisaa waxa aan kaa raba inaad diiradda saarto hadafka aad rabtid inaad xaqiijiso adaa yaqaana waxa aad rabto meel ku qoro kana fikir sida aad u hirgelin lahayd markaa kadib u qabo waqti aad rabtid inaad ka shaqayso waxaan tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad graphic design noqotid kadibna aad ku shaqaysatid maalin kasta waqtigaaga qayb ka mid ah si barashada Photoshop hal bil u jaangooy kadib markaad dhamaysid u gudub Illustrator 2 bil kadib maxaa diiday inaad noqotid qof graphic designer oo ku shaqayn kara saaxiib waxa aad rabtid inaad xaqiijiso waqtigaasi haba yaraado hubaal waad ka guulgaaraysaa xeerka labaad waxa uu yahay jooji isticmaalka badan social mediaha haddii maanta oo dhan aad dul meeraysato social mediaha maxay kuu soo kordhinaysaa lacag miyaad ku helaysaa waxa muhiimka ah kaaga maqan maxaa waaye maad waqtigaasi ku bixinayso ku maalgashatid wax kale oo noloshaada faa'iido u ah horumarkaagana ka qayb noqon kara dhaqaale ku soo gelin kara ka waran haddii xirfado kala duwan aad ku baratid waqtigaasi soo shaqooyin badan kuma helaysid xitaa waqtigaasi aad social mediaha ku bixinayso aad ku shaqayn kartaa saaxiib dib u fikir inta aad dhalinyaro aad tahay waqtigaaga ku maalgasho wax faa'iido ku leh waqtiga ugu fiican wax la maalgashto xeerka saddexaad waxa uu yahay maalintaada qorshayso marka subaxdii aad soo kacdo si dhaba isu weydii maanta maxaan qabtaa oo faa'iido igu soo kordhin kara naftaada ma kula tahayna been kuu sheegi karto jawaabtu waa may maalintaasi qor sida aad rabto inay kuu dhaafto noodka mobilkaaga ku qor dhowr waxyaabood oo aad rabto inaad qabato ku bilow kan ugu adag ha kuu dambeeyo kan ugu fudud waayo taasi waxa ay balance gareynaysaa tamartaada iyo waqtigaaga hadhowna kuguma adkaanayso inaad qabato xeerka afraad ee ugu dambeeya aan rabo inaan kula wadaago waxa ay tahay baro maya sida loo dhaho adoo wax muhiima kuu socda ay saaxiibada kaa codsan karaan inaad raacdo waa inaad maya ku dhahdaa si hawshaad u dhammaystirato kool ayaa kuu soo dhici kara waadna arkaysaa qof ayaa ku soo wacaya naftaadana waxa ay ku leedahay ka qabo waa inaad maya ku dhahdaa naftaada mobilkaasna iska fogeysaa hadhow ayaa dib u wici kartaa dhammayso hawshaada saaxiib maya wax badan ayay kaa saacidi kartaa waqtigaagana way kuu badbaadin kartaa inuu kaa lumo afkaaga waxa aad bartaa kelmadda may si hawl sugan oo dhammaystiran aad u qabatid gunaanadkii waxaan ku leeyahay wax ku istaajin kara ma jirto ilaa naftaada mooye ka adkow iyada oo edbi kana rumeeryadaada nolosha nabadiino